Xafiiska France Football ayaa shaaciyay waqtiga la bixin doona abaalmarinta xiddiga ugu fiican ee sanadkan 2023 ee Ballon d'Or iyadoo la filayo in ay wareejin doonaan ciyaartoydii sanadkii hore ku guuleysatay ee abaalmarintan Karim Benzema iyo Putellas oo bandhigoodu u liitay xilli ciyaareedkan. Magaalada Paris ee wadanka Faransiiska ayaa lagu qaban doonaa xafladda lagu bixin doona abaalmarinta shakhsiga ugu qiimaha badan ee kubadda cagta. Maalinta ay taariikhdu tahay Oktoobar 30, 2023 ayaa la qaban doonaa xafladda sida ay sheegeen qabanqaabiyeyaasha Jimcihii maanta. Liiska gaaban ee tartamayaasha ayaa sidoo kale la soo saari doonaa Sebtembar 6 waxaana mid walba gaarkiisa loo shaacin doonaa wiilasha iyo hablaha ku tartami doona. Inkastoo ay bilo badan ka harsan yihiin waqtiga la bixinayo abaalmarinta, haddana waxaa la filayaa in ay ku jiri doonaan tartamayaasha Erling Haaland iyo Kevin De Bruyne oo Manchester City Vinicius Junior oo Real Madrid, Kylian Mbappe oo PSG iyo hogaamiyaha iyo kabtaanka xulka qaranka Argentina ee 7 jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or ee Lionel Messi. Waxaa kaloo Sebtembar 6 la shaacin doonaa xiddigaha ku tartami doona abaalmarinta da'yarka sanadka ee Copa Award iyo goolhayayaasha ku tartami doona abaalmarinta Yashin Award. Waxaa kaloo la bixin doonaa abaalmarinta cusub ee Socrates Award ee sanadkii hore lagu daafuray Sadio Mane, waxaana tartamayaasha la shaacin doonaa 7 Juulaay. Fadlan haddaad ku cusub tahay horyaalka ciyaaraha, like inoo saar, subscribe, share garaysi barnaamijkan asxaabo badan u gaaro mahadsanidina.